وهاجاك konton sano ka hor maanta oo kale waxa magaalada Laascaano toogasho loogu dilay madaxweynihii labaad ee si dimuqraadiyad ah loo soo doortay Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmake oo xilliga isaga iyo wafdi uu la socday ay marayeen gobolada Soomaaliya ayaa halkaas lagu dilay hadaba Qaali Baaruud ayaa la hadlay dad goobjoogayaal ah maalintii madaxweyne Cabdirashiid la toogtay Axmed Cabdilaan Gare waa 29 jir konton sano ka hor maanta oo kale waxa uu aroortii ku soo dhaweeyay magaaladiisa madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmake ay ruuxooyinka magaaladan ahaa ninkaas waa soo degay dadkii soo dhaweynayay salaamay salaantay baanu kala qaadanay waa soo kaxaynay waa soo horgalay degmada Laascaanood dawladda hoose baanu ku soo dejinay ninkaas waa ka hadlay odayaashii waa ka hadlay waxa la su'aalay Cabdirashiidow ma lagugu yiri Laascaanood baa lagugu dilayaa waxa ay ahayd su'aal lama filaana oo uu madaxweynuhu si iimaan leh oo dastuurka waafaqsan uga jawaabay laakiin labada dhinacba ma ogeyn masiibada madaxweynaha ku sugaysa guriga degmada haday taydii noqoto nin kale ay bedelayo marka uu duceeyay maaytay uu hadlay daruurtu marka waa la dul joogtaa ilaahay oo soo furo uu yiri marka waa dareer markii aanu dareeray ninka dilaya halkii qadada loogu sameeyay rasawsti uu wasiitay askartuna kamida askarta burco laga keenay buu kamida waxa naga horeeyay gaari ciidana ma laga soo horeeyay markuu halkii laga galay guriga uu taagnaa ninkii u xigay markii nin Ali Garaad la yiraahdo uu beledka saadaaqada uga furay buu ku furay Ali Garaad baa ku dhigay oo beledka markaas uu yiri way kaga qaraxday halkaas ra'iisul wasaare madaxweyne ku dhintay diiladii dilka madaxweynaha ayaa daqiiqada kadib gaadhay guud ahaan magaalada shawgude dad magaalo caadi ahaydo ilbaxsaasana ma ahayn adduunyadan ma ahayn waa ka duwanay dad reebaadiya oo caadi ah markii la yiri madaxweynihii la dil dadkii waa argagaxay waa yaabay waa argagaxay deenin meesha sii joogayna waa dilay nin kale lama dilin waxa halka ku nafwaayay ma ahayn madaxweyne Sharmake oo kaliya ee waxa sidoo kale god ku dhacay dimuqraadiyadii curdunka ahayd ee Soomaaliya Laascaanoodna waxay ahayd halkii ugu horeysay ee laga dareemay qoladayda dawladda hoose baa maydkiisii qaaday odayaroodii saartay shawgii magaalada wuxuu noqday isku sayr baa laga waayay magaaladii 7 casho la xiray aanu xidhnay 7 casho wax cuntaa lagama cunin waxaa afxiranka inqilaab ku afuriyey curiyihii kacaanka Maxamed Siyaad Barre maalin kadib markii la aasay Cabdirashiid Cali Sharmake xabadii uu maalinta riday Siciid Yuusuf Ismaaciil waxay qudgoysay madaxweynihii labaad ee Soomaaliya ciidamadii dalka qabsadana waxay aaseen tijaabadii dimuqraadiyadda dalka Soomaaliyana waxa uu bilowday waa cusub Qaalib Xasan Baaruud BBC وهاجاك hadaba waxa stuudiyaha la jooga Maxamed Xaaji Ingiriis oo horay wax uga qoray dilka madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmake Maxamed ku soo dhawo BBC Somali TV maxaanu ka naqaanaa ninkan la yiraahdo Siciid Yuusuf Ismaaciil ee madaxweynaha dilay ninkan madaxweynaha dilay wuxuu ahaa nin 22 jir ah waxa la oran jiray Siciid Yuusuf Ismaaciil waxa loo yaqaanay Siciid Orfano wuxuu ahaa nin lagu soo dhex qariyay ciidankii booliiska loo diyaariyay ilaalada madaxweynaha intuu marayay gobolada Togdheer iyo Waqooyi Bari oo marka hore ka yimid dhulkan hadda Puntland loo yaqaano kadib ayaa madaxweynuhu tagay Waqooyi Galbeed kadib meeshan uu soo booqday Laascaanood oo markaa ka mid ahayd gobolka Togdheer marka meel walba uu tago ayaa la geenayay oo la socday madaxweynaha meel walba uu tago laakiin wuxuu heli waayay fursadii uu ku toogan lahaa marka markuu maalin Arbaca ah qoraxdu kulushahay goor duhura madaxweynuhu gaari kaga degay
xarunta degmada laascaanood irdeeda iyadoo uu la socdo gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Maxamed Xuseen ayaa Saciid Orfano oo 2 nin oo booliiska ka tirsanaa hagayaan wuxuu isla markiiba xabada ku boobay madaxweynaha 7 xabba ku dhacday madaxweyne Cabdirashiid qaarka korona ka toogtay sida buugaygana aan ku tilmaamay markaan daraaseeyay archive-ka iyo research-adii cilmi baarista aan sameeyay ku qoran marka dhulka nafta lama dhicin dhagax meesha yaalo ku kordhacay xaalad adag ayaana la galay marka nin wuxuu ahaa sida hadda qoraalada la qoro Soomaaliya waxa ku cad inuu ahaa nin booliis ka tirsanaa laakiin aniga taydii waxay cadeysay ama gadaal ka soo heshay marka feelka dawladda aan baaray dokumentiyada booliiska iyo safaaradaha xamar waxay ka soo direen inuusan booliiska ahayn oo ahaa ciidanka daraawiishta maxamed ma ognahay sababta keentay inuu ninkaasi madaxweynaha dilo maalinta sababta sida ay u dhigayaan ma aha Soomaalida iyo qaar kamid ah kuwa Soomaali dirsa waxay sababta u dhigaan inay tahay qabiil madaxweynaha qabiilku ka dhashay jifada uu ka dhashay iyo jifada Saciid Orfano ka dhashay oo baarlamaanka isku hayay 2 kursi kala qaadan jirna doorashooyinka hore oo markan dambe doorashadii 22 Maars dhacday 1969 jifadii madaxweynuhu labadiba qaadatay inuu ahaa ay u macnayaan saasay ka dhigaan in la isku dilay laakiin wax lagu dhax qariyay ahayd run ahaan dilka madaxweyne Cabdirashiid wuxuu ku xiriirsan yahay dilal qorshaysan oo dhacay lixdamaadkii oo hogaamiyaal badan oo Afrika lagu dilay laguna dhex dilay hagardaamadii ka dhex socotay sirdoonada Mareykanka iyo Ruushka galbeedka iyo Ruushka baan dhahno iyo bariga ku dhex jirtay dagaalkii qabooba Cold War laakiin cadeyn sidee loogu heli karaa arintaas maxamed waxa loogu helay aniga daraasadayda buugiga daaqrisada cilmi baarista aan sameeyay sirdoonka Mareykanka wuxuu qoray kan Ingiriisku wuxuu qoray kan Ruushka access uma helin aan qoran laakiin haddaan isla baaraynaa aniga inaan macallin oo jooga jaamacadda Cardiff oo Ruush ah waxaan aqrin doonaa oo naloo turjumi doonaa asagoo turjumi doonaa Ruushka wixii ay qorayeen qaasatan safaaradda Ruushka waxay xamar ka soo dirtay ay ku caddaa cid dishay iyo sida loo dilay inay waxaan mu'aamarad iyo shabakad isku dhan ay ahaayeen ujeedada laga lahaana ay tahay in wadanka inqilaab la geliyo laga soo gooyo sida weecashada uu wadankeena u weecday dhinaca galbeedka qaasatan Mareykanka oo la qabsadeen Cabdirashiid iyo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo rajaaro u ahaa marka waxaan isticmaalnay data cusub oo confidential iyo documentigii dawladda wixii ka dambeeyay aan discourse oo ana u falanqeeyno u faaqidnay waa gartay dilkii Cabdirashiid 6 maalin kadib dalka waxa la wareegay ciidanka arinta ma lagu xiriirin karaa inay kulug lahaayeen dilka madaxweynaha dilku wuxuu u ahaa hordhac in inqilaab la galo madaxweynihii sida laga yeeli lahaa wadankii hadda deetada sirdoonka aqrisid waxa ku cad marka hore inay rabeen in ra'iisul wasaaraha dilaan marka waxay isweydiinayaan dir wasaaruhu dhintay waa la bedelayaa wasaar cusub imaanaya marka waxay ku habooneed in madaxweynaha la dilo si inqilaabku u helo sharciyad lagu dhigo ilaa madad madaxweynaha jooga hadii la afgambiyo waxay falanqeeyeen kuwii fuliyay Cold War ku dhex fuliyay in dadku ka cidoonaan qabiil la isku cuni doono wax inay dhici doonaan madaxweynaha jooga in la afgambiyo marka si in la soo dhaafiyay ahayd marka titoos iyo si dadbanba waa ugu xiriirsan waxaana cadeeyay hadda cilbaaristan hadda sameeyso in dadka Saciid Orfano markii maxkamadda militariga ugu horeysay ay saartay 5 qofood uu eedeeyay oo uu ku eedeeyay dilka qaar kamid ah in taliska militarigu dalacsiyo xil siiyay lacag siiyay guri siiyay ku caday dokumentiga dawladda bulletin official ah daafirus waa gartay dawladihii dalka isaga dambeeyay marna ma loo saaray guddi baaris sax ku sameeyo dilka Cabdirashiid maya waa tan la yaab kale markaad fiiriso hogaamiyaasha la dilay sida Tom Mboya Kenya iyo Mozambique iyo Nigeria aad eegto nin kasta oo madax ahaa oo figure weyn national ahaa sida madaxweyne Cabdirashiid gudiya ayaa la saaray oo national level ah oo baara oo dilkiisa markay baareen soo helay dadkii dilay Soomaaliya waa meesha kaliya in madaxweynaha inta la dilay maalin cad la dilay ilaa ay hadda oo 50 sano aan joogna aan la baarin wax baaritaan laga sameyn hadii dawladda Soomaalidu xataa ay u suurtagali weyn lahayd in baaritaankaas ay ku filan weydo oo ay aragtay in gacmaha la galay wadamo caalami ah waxay u bandhigi kartay qaramada midoobay si gudi loogu saaro sida Dag Hammarskjöld oo ahaa xogayihii guud ee qaramada midoobay asagana lagu dilay Cold War Congo soo diyaarad habeen madow kala kacay la door riday ilaa maanta buugaag badan laga qorayo la isku haystaa cid dishay mar walbana meelo badan gacmaha la galiyay ceeb badan ay ka soo baxday cid dishay oo si ayadu madaxweyne Cabdirashiid marna lama gelin cilbaaristeedana waxaan ku taliyay intay qaadatay in marna loo baahan yahay in la saaro gudi 50 sano ma qaadatay oo dambe Maxamed Xaaji Ingiriis aad iyo aad ayaad u mahadsantahay